halkaas dhagtiraadkeeda uga dhacday moobilkii waa ka meesha ka gashay goobta xabadda dhankan kale ka baxday. Cabdullaahi Maxamed Axmed waa marxuum hadda inaga hooseeya mudug ayuu uga yimid arrimo caafimaad si loogu dabiibo Muqdisho waana mar uu ka jabay gacanta bidix balse markii uu bogsaday qorshaystayna inuu ku laabto halkii uu ka yimid ayaa loo dilay kaliya in laga qaato taleefankiisa gacanta xilligaasi oo wiil uu adeer u yahay kala hadlayay arrimo ku saabsan guriga noqoshadiisa. dable xoogga deeqow Isaaq Ibraahim oo ka tirsan guutada 22aad ee Gungaar ayaa loo haystaa dilka marxuum Cabdullaahi Maxamed Axmed kaliya inuu ka qaato taleefankiisa gacanta ayuuna naftu u dhaafiyey iyadoo xabaddii uu dhintay marxuumka ay sii martay taleefan dhegtuu saarnaa oo uu ku hadlayay waaxda Kordamac ee degmada Dayniile ayuuna falkan ka dhacay 5tii bisha 10aad ee sanadkan. eedeysanaha oo dilka kadib qaatay taleefankii marxuumka kana baxsaday goobtaasi ayay laamaha amnigu ka soo qabteen degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose 4 maalin kadib dhacdada 9kii bisha 10aad ee sanadkan. waxa uu isku difaacayaa inuusan u dilin marxuumka dhicidda taleefankiisa balse uu ka qaatay jantasigar kadibna ay xabad uga fakatay uuna rabay kaliya in taleefanku uu ku hadlayay marxuumka damiyo. dilku wuu jiraa laakiin moobilka la sheegayo ani war uma hayo ma qaadanan moobil xaafad oo u dhow bangiga dhiigga meel oo ay ahayd wadada dhankaas kale ka imaaday labo qof meesha wadada dhinaceeda fadhiyeen marxuumka dhiman doono Ilaahu naxariista iyo marxuum kale la fadhiyeen anoo meesha soo maraya wadadii dhinaceeda arkay marka kaalis gaarshida malay gashay leetarkii waay ayaga u laabtay mid kamid ah marka marxuumka dhiman doono telefoon ku hadlayay mid kale marka meesha fadhiyay isla fadhiyeen aadahay leetar idib leetar idibay siyarka ka shitay marka raafadaan ma tihiin xaafadaana deganaa ma ay dhahay marxuumka dhiman doono Ilaahu naxariista marka telefoon ku hadlay telefonkii iga dami aadahay maankii inuu i furnaa marka moogeen fartiya saas farta ugu dhacay abad saas halba la tooyay fakatay intee ugu dhacay wallahi inta inay taawayna sawirkiisa la tusay marka moobilka dib meereys ya moobilka toosh ma ka daaray ma toosh kama daarnay telefoon ku hadlay telefonkii iga dami aadahay amaankay markii laamiga ka soo degaya marna amaankay soo furtay amaankii inuu i furnaa marka moogeen fartiya saas farta ugu dhacay abad saas halba la tooyay fakatay intee ugu dhacay wallahi inta inay taawayna sawirkiisa la tusay moobilka qofka hadlay duka dhibay sidoo ku dhibay sidoo ku dhibay moobilka toosh ma ka maana codkiisa hoos ahaa marka anigu uu sheegay waa maqli waay hadalka aad diray hadalka miya maya yani hadalkiisa oo qof qushu amal ku hadlaya ma laha oo si hoosay u hadlaa moobilka iga dami iyo marka amaanka inuu u finyahay moogeen fartaasaas igu laacday marka adoo socotay hadalkiisa maxaa qof ku galay si socotay hadalkiisa maxaa u diidantaa sababta qofkan moobilka dami aad leedahay uu hadlay Soomaaliya hadalkiisa muxuu ku dhibay maana hadalkiisa kale u fahmay ama maana wax kale shay ama la u fahmay arka hadalkiisa hoos qof oo jilbiisa saan isku laabnaan saan mal u dugnaa markii ani telefonkii iga dami markii ani dhahay asoo telefonka saan u soo elin rabo iyo na farta amaankii iga dhacday asoo saan u soo qaadin rabo afarta amaankii iga dhacday sidaas marxuumku saas uu ku dhintay Ilaahu naxariisto laba moobil meesha kale mid kan xabada ku dhacday asiga kula dhacday ma ha mid kale ani kaas ma sheegi kari moogi adiga marka uu falka dhacay kadib waa baxsay waa carartay kaliya soo kale sida dahir ilaaliyaha sheegayo Wallaweyn soo baxay ana faasi oo yani soo baxday wallahi tafal falan gurigay geysana dhacay kulay ani absadartada leertu meeshii geysay ninka oo yarkan soo qaban doona sarkaalka ma soo qaban doona abara malaas la joognay oo laba maalmood amal la joogno sawirkay loo soo diray kadib uu saas igu soo qabtay muxuu sarkaalka
بوليس وها محمد مشكلة تليس اللك arrimo kale oo ku saabsan kiiskan waxaa maxkamadda u sharaxaya ku-xigeenka xeraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida waxa uuna bidhaamiyey shakhsiyadda marxuumka iyo qaabkii uu dilku u dhacay oo lagu muujiyey sawir gacmeed marka telefoonkan ayuu ku hadlayay dhegta ayuu ku haystay isagoo ku hadlaya xataa jaanis waa sii waayey sababtoo ah qof dhaawac ah oo dhaawacii ka soo kabtay kadibna rabay inuu safar u aado gobolku ka yimid ayuu ahaa mobilka ku hadlayay ujeedada uu u dilayna waxay ahayd ama hadafkiisa ama nuxurka cunsurka dilka loo geysanayeen waa mobil uu arkayay oo u saarnay dhabtiisa inuu ka qaato isla markuu saa goobta u soo istaagay xabadii ayuu dhagta gacanta ee ku dhacday mobilka saad aragtaan mobilka waa kala fuqay waa soo haduu sheegay marqaatiga shanqara yeertay uu dhahay ama wixii mobilkii waa ka meesha ka gashay goobta xabadda dhankan kale ka baxday dhagtii kaga sii dhacday kadibna qaybta kale dhigta kale ka baxday meeshii ayuu ku naf waayey qofkii oo la fadhiyay xataa maadaama labadaba ay yihiin dad gobol ka soo jeedo goobta fadhiyay labada simkaarka wuxuu ku hadlayay ama isticmaalay ugu jiray labada simkaarba telefoonkan markii uu dilay kadib wuxuu ka baxsaday goobtan waa goob jiingad ee ku taalo meeshana waa bacaad ay ku fadhiyeen habeen maqribkii kadib ay ahayd dad laga shakin karo oo inay hub wato macsaabta waxay iska wateen macawiisahooda fanaanada iyo shaatiyaal iska wateen meeshuu ku hadlayay isla markiiba wuxuu u soo saantagay ama u soo hunguri raadsaday dadkii loogu talagalay inuu waardiyeeyo ama la shaqeeyo ama fadhigii uu ka shaqeynayay agteeda waaye koolbuwaardiyihii ay ka shaqeynayay oo fuuli jiray ayuu xabaddu ku dhaftay uu haddana hormaray waa tii askariga hadda sheegay ka shaqeynay ka hadlayay deeqow orod ku agmaray marka qaabkaasi waxa uu dilay mobilka ku qaatay cunsurka uu dilka u geystana waxay tahay inuu mobilka oo kaliya qaato mobilkina waa tuu ku dhahay waan ku safray oo wuxuu ku aaday wala weyn marka waa nasiib wanaag nin loo soo tababaray xoogga dalka Soomaaliyeed qaasatan police military waxay la shaqeeyaan booliiska Soomaaliyeed qaybta guud ee gobolka Banaadir qorigaana waa qoriga waa qori cusub qorigu ku shaqeynayay oo dilka ku geystay waaye marxuumka loo geystay waa kan Mahad Xuseen Nuur oo marxuumka dhinaciisa fadhiyay markii la dilayay ninka dhimanayo aniga sidaas oo kale uu halkaan kale u xigaa askarigan saas oo gudbay ninkan na mobil weyn waxa uu saaran yahay halkaan hooyada midna wuu ku hadlaa ka yar wuu ku hadlaa ka weyn waxa uu saaran yahay bowdaas ninkan saas oo gudbay sidii wax gudbaa jiro soo gala dhiga taraafiyada waxaan ka war helnay iyo xabadii aniga waxaan ka war helnay xabadii ninkan ku dhacday halkaas dhagtiraadkeeda oo dhacday gacanta uu taleefanka kula laayay wax dhimo soo dhacday wuu dhacay ninkii markii uu dhacay adiga wadankan aniga aad marka Soomaaliya kala aqoon ninkii markuu waxbada ku dhuftay taleefankii lugta saan ugu jiitay asoo qoriga aniga u hayo taleefankii si haabta wuu isgadi anna markaas waa sida hadda adiga aan kugu jeedo markaas aan u firaa meeshan xoogaa waa meel iftiina ninkii waa isgadiyay ninkan inaysan nafta dhulka saasan u fiiriyay inaysan nafta dhulka la gaarin waa ark asigii aan ka daba ordo toos oo si u qadiman meesha koolbuwaardiyaha eridkiisa markuu maraa anigana aan ka daba qaylaa oo ciidanku ay degan yihiin wax asaga qabaan aan markaas arag anigana hadda nafteeda uga baqo shacab macna meesha ka fadhiya hawlba kii uu dilay waxba kama duunayn wax qabaana waa arki waayay halkaas markay maray aniga waa iska soo noqday askari arkayay isagoo ordayay eedeysanaha markii uu dilka geystay kadib ayay isna maxkamaddu dhageysatay anoo koob waardi saaran hiladii marhabadisay amalaa lagu jiray ninkan oo waxa isoo maray oo wadada orodku soo maray aadi u soo orduy ay isoo dhaxmaray waxaadaysa waa aqaane waa uu ay magaciisa aqaane waa uu ay waxaday deego waa dhahay saaxiibkii deego markaan dhahay way dhigtiray markuu dhigtiray kadib wax yar kadib dad ay imaaday waxaa la dhahay niyow askarigu hadda inta ormugu maray la dhahay
nina meesha ku dilay hal ogaado dha nima meesha lagu dilay ha ay si ko waardiga ka diga dadka u sheega suga dha dhulka digi ciidankii oo helada joogay u sheegay nina meesha lagu dilay sheegay soo fiiriya dha anigu waardiga kama tagi karaa maxamed cabdisamed faarax qadka taleefanka ayuu la saaraa marxuumka dhintay maanta ayaa isna lagu wareystay fadhigan gudoomiye waa mahadsan tahay inta aan ka ogahay marxuum cabdullaahi maxamed axmed shantii bisha tobnaad ayuu habeenada shantii habeenkii uu soo wacay mar ay tahay 1 saac iyo 46 daqiiqo anigoo markaa xaafadda soo galay ismaana arkin maalmihii ka horeeyay waxaana isku nahay aniga asagu dad walaala eela waa kaasinkayga labaad ama adeerkayga labaad malaha waxaan wada hadlaynay muddo 4 ilaa 5 daqiiqo ah ninkii soo ila hadlayay ayaa hal mar waxaan waayay telefoonkiisii waxaan dareemay shanqar aanan caday karin wixii ay ahayd kadib waan ku celiyay telefoonkii markaan ku celiyana wuxuu igu yiri fadlan fariin codeed u reeb telefoonkan inta kadib in ka yar 10 daqiiqo ayaa waxaa la ii soo sheegay geeridiisa marka waxaan halkan ka cadaynayaa xilligii dilkiisa uu dhacay iyo xilliga aniga uu ila hadlayay inaysan daqiiqado aysan ka badnayn 10 daqiiqo ay u dhaxaysay adiga telefoon ku hadlayo aniga telefoon ugu hadlayaa telefoon intuu hadal ku jiro doodtiisa qof la hadlayo ma soo dhahay maya ma dhigay maxay garabtaa iyo wuxuu dhahay maya ma ana maqal haba yarta ma ana maqal kaliya telefoonkii qaab shanqar ahaan inuu iga go'ay ayaan u maqlay kaliya soo ila hadlayay hal mar intaa kadibna codkiisa ma ana maqal baaraha kiiskan ayaa garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida la wadaagay natiijadii u soo baxday gaashaanle axmed iimaan maxamed ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa gebagabadiisa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha ay ku xukunto dil toogasho oo ah qisaasta marxuumka waxaan caddaynay si waafaqsan 168 si shaki aan ku jirin inuu dilkan u dhacay si aan rabitaankiisa uu ahaa inuu mobil ka qaato ugu talagalay inuusan qofkan ka kicin madaxa uu ka toogtay waxaan hor keenay marqaatiyaashii goobjoogayaal ama ninkii la fadhiinayay uu sheegay inuu isaga xataa sigtay qofkii mobilka uga qaadanaya xataa mobilka ku jibiyay waxaan hor keenay askarigii la shaqeynayay oo yaqaan aqoon buuxda u lah inuu deeqo yahay qofka meeshii goobta ka soo cararay soona hormaray jagboon baalkii kolbuardiyaha xabadana soo rid inuu yahay waxaan hor keenay maxkamadda qofkii telefoonka kula hadlayay telefoonkii uu ku hadlayay isla markaana qarxay sidaas daraadeed maadaama kiiskan aan shaki ku jirin wax walbana aan cadeynay cunsuriyad walba oo lagu cadeyn kara ama ujeedada walba ay maxkamadda ugu cadahay maxkamadda waxaan ka codsanayaa maadaama ehelada labada dhinac ay joogaan isagana uu ogol yahay qiraalna uu ku yahay dembigan inuu kas u galay dhacna uu geystay si waafaqsan 120 inay maxkamadda aan ka codsanayaa si xushmad leh inay ku dhawaaqdo xukunkiisa dadka siday u ogaadaan ama ehelkii iyo abawatiisa maadaama uu joogo maxkamadda waa maasan tahay oo ah inuu dil kas ah u geystay marxuum cabdullaahi maxamed axmed oo ah dilkaas oo kasna u geystay in maxkamadda ay ku xukunto dil toogasho maxkamadda waa maasan qareenka eedeysanaha abuukaata caarif ayaa isna dhankiisa codsaday in muwakilkiisa laga khafiifiyo ciqaabta loona eego sifaalaha dembiga fududeeyo mudane gudoomiye garsoorayaal dilka marxuumka dhintay asaga hadda maxkamadda horteeda qiraalka fadhigii horena waa ka qirtay haddana waa ka qirtay dilka marxuumka inuu dilay qiraalkuna hadda sidiisa waxaa weeye aqwal bayinaad weeye markhaatiyaalna xafiiska xilaalinta waa keeno dilka caddaynaya laakiin muwakilkayga wuxuu inkirsan yahay qodobka ah nuxur ahaan u qoran laakiin qodob ahaan aan u qorayn oo ah 484 nuxur ahaan buu qoran yahay laakiin qodob ahaan uma qorra macnaha dhac inuu mobil dhacay muwakilkaygu qiraal uma ahan waxaan markaa xaqiiqada ka codsanayaa dilka asaga qiraal ah dilka marka eedaas marxuumka dhimashadiisa ma ka difaacayo
liannahu xaq kale oo aadami ah marka taa ka difaaci mayo waxaan ka difaacayaa middatan oo soo qiraalna u ahayn markhaatiyaal dhamaystiran aan loo keenin oo ah dhaca moobeelka waxaan codsanayaa maxkamadda sharafta ka codsanayaa inay eedaas 434 ay ku weydo tan kale oo dilka marxuumkaane maxkamadda ay go'aan ka gaarto maxkamadduna waa mahadsanta maxaa codsanaya maxkamadda maxaa ka codsanaya kolley iqaab waa mari doonaabe kolley iqaabta leh liiga qafiifiya dhihi lahaa dhegaysiga kadib garsoorka oo wadatashi dheer geliyey kiiskan ayaa ugu dambeyn go'aan ka soo saaray ekis dable xoogga deeqow isaaq ibraahim ayaana lagu xukumay dil toogasho oo ah khisaasta marxuum cabdulaahi maxamed axmed siduu warbaahintu u sheegay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida cabdiraxmaan gacan warbaahinta qaranka muqdisho.